بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد guud ahaan marti sharafta kasoo qayb gashay madashan ay ugu horeeyaan xubnaha guddiga doorashooyinka madaxda hay'adda BDRC ugu horeeya agaasimaha Cali Faarax madaxda xisbiyada siyaasadda aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka bahda saxaafadda iyo guud ahaan inta madasha joogta habeen wanaagsan runtii farxad weyn bay noo tahay caawa inaan hortiina nimaadno oo wax badan aan ka iftiimino arrimaha doorashooyinka iyo meelaha ay marayaan waana madal muhiim u ah geedi socodka iyo daafurnaanta doorashada iyo in xog buuxda laga helo meelaha wax marayaan iyo wixii su'aalo la qaban aan ka jawaabno si guud waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adda BDRC oo taabagelisay madashan sidoo kalena si guud doorashooyinka juhdi badan ku bixisay oo hadda sida agaasimuhu sheegayay shaqooyin badan oo muhiim u ah arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka gaar ahaan saddexda degmo ee hadda socota iyo guud ahaan 33 degmo iyo saddexdii ka horeeyay 33 degmo shaqo fiican ka soo qabtay ay ku jireen xitaa saddexda degmo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intaas kadib waxaan rabaa inaan san waqti uga faa'iideysano inaan guda galo si kooban shaqooyinka socda iyo guud ahaan wax la xiriira doorashada si guud doorashadu waxay ka qabsoomaysaa saddexdan degmo ee Garowe caasimadda ugu horeyso Dangoroyo iyo Gudub Jiiraan waana doorasho dhamaystir ah oo awal la diyaariyay oo inaka baaqatay inaka hakatay hawlaheedu meel fiican ay marayaan haddana waxaan ku jirnaa wiiga ugu dambeeyay ee aan doorashada ku gali lahayn dhanka diyaar garowga guddiga doorashooyinka Puntland ee BEG awal wuxuu ahaan jiray TBEG oo macnaheedu ahaa transition inuu ahaa transition-kan wuxuu kaga gudbiyay inuu qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka uuna qabtay hadda guddi waxaan haysanaa rasmi ah oo la yiraahdo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland guddiga xaruntiisa dhexe waa caasimadda Garowe wuxuu leeyahay xafiisyo kale oo degmooyinka gobolada ah si guud wuxuu ka kooban yahay guddigu istaraatiiji ahaan commissionerska oo sareeya oo ka kala yimaada baarlamaanka madaxtooyada iyo xisbiyada siyaasadda ee Puntland wuxuu leeyahay xogayaha guud ama xogeyn guud agaasimayaal madax qaybeedyo iyo shaqaale kale oo xarunta dhexe jooga wuxuu leeyahay gudoomiyaasha gobolada oo iyagu gobolada wakiil uga ah gudoomiye ku-xigeenadooda xoghayayaasha degmooyin iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo xoghayayaasha xafiis ahaan wuxuu u sii dhaadhacaa ilaa goobta doorashada uu leeyahay gudoomiyaha goobta doorashada maalinta doorashada marka istaraatiiji ahaan qaabkaas uu dhisan yahay guddiga doorashooyinka sidii maaragtay Cali Faarax hore uu sheegay wuxuu haystaa mandate-ka sida uu qabo qodobka 114 dastuurka Puntland inuu mas'uul uga yahay doorashooyinka nooc kasta ay yihiin golayaasha deegaanka baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo soo saarista xisbiyada siyaasadda markay gudbayaan ururada iyo dhammaan shaqooyinka doorashada hoos yimaada oo diyaar garowgeeda ama maaragtay diiwaangelin ha ahaato ka qaybin ha ahaato iyo wax kasta oo shuruucda doorashooyinka la xiriira fulintiisa haddaan u gudbo shaqada hadda socota ee saddexda degmo ka socota saddexda degmo Garowe iyo Dangoroyo iyo Gudub Jiiraan diiwaangelintii hore baa looga sameeyay oo degmooyinka kale ee Puntland bay la socotay hore waxay soo diiwaangeliyay degmada Garowe 50866 cod bixiye Dangoroyo waxay iska diiwaangeliyay 10847 cod bixiye Gudub Jiiraan sidoo kale 3033 cod bixiye doorashada ka hor waxaanu waqti siinay
dadkii kaararka aan qaadan oo kaararka haraadiga xarunta dhexe oo la iyo dadkii muddadaas diiwaangelinta ka dambeysay kaararku ama ay ka lumeen ama ay ka xumaadeen iyadoo aan soo gabagabaynay maanta waxaana kaararka dib loogu daabacay dad gaaraya 800 iyo dheeraad 809 qof guud ahaan kaararka la bixiyay kaarar 2000 ku dhow 1855 kaar seejooyinka saddexda degmo Garowe waxa ku yaala 61 seejo degmada Dangorayo waa 12 seejo iyo gudub jiiraan oo ah 7 seejo marka degmo kasta waxay leedahay intaas oo goob cod bixin maalinta doorashada dadka ka qayb qaadanayaan rajaynayaan inay qayb ka noqdaan guud ahaan oo isugu jira qaybaha kala duwan dadka ka shaqeynaya kormeerka maxaan horaha korjoogtada iyo amniga waxay isugu jiraan 80 kooxood oo goob kasta oo doorasho ama goob kasta oo cod bixin waxay leedahay shaqaale ama team ka shaqeynaya oo isugu jira teamka hay'adda bee ka socda teamam xisbiyada ka socda shaqaalaha aan rajaynayno inay qayb ka noqdaan maalinta doorashada waxay gaarayaan 350 shaqaale ah amniga inay qayb ka noqdaan baan rajaynaynaa oo aan waxba iska bedeli karaan oo ka badan karaan oo ka yaraan karaan laakiin qiyaastii ilaa 500 oo ciidan ah rajaynayna inay qayb ka noqdaan murashaxiinta ayagana waxaan rajaynaynaa inay noqdaan 648 korjoogtada doorashada oo bulshada rayidka iyana ka imaan doonta waxa noqon doona 160 gaadiidka aan rajaynayno iyaga qayb qaataan qiyaastii waxaan rajaynaynaa wax ka badan 100 gaadiid ah iyo darawalladooda inay qayb ka noqdaan wakiilada xisbiyada u noqon doona maaragtay wakiilka goobta u noqon doona 640 wakiil inay iyagana qayb ka noqdaan baan rajaynaynaa warbaahintii oo iyaduna halka ku jiri doonta qayb bay ka noqon doonaan waxaan rajaynaynaa in ka badan 2300 iyo 2400 oo maaragtay ka qayb qaatayaal ama beneficiaries ah inay maanta doorashada ay qayb ka noqdaan waan rajaynaynaa walina ma cadda tiradooda korjoogtada caalamiga ah iyadana inay qayb ka noqdaan ilaahay idinkiis ilaa hadda waxyaabaha noo qabsoomay hay'ad ahaan aan ugu diyaar garoobayno ama ugu diyaar garownay maalinta doorashada waxa kamid ah inaan kulamo la sameynay daneeyaasha doorashada ay ugu horeeyaan xisbiyada siyaasadda xukuumadda bulshada rayidka ah iyo daneeyaasha caalamiga aan baa wadaagtanahay dhamaantood waxaan la yeelanay kulamo aan kaga arrinsanayno qabsoomidda iyo habsami socodka doorashada saddexda degmo sidoo kale waxaan u diyaarinay oo qayb ka ah isla qabsoomidda doorashadan iyo kadibba qorshihii hay'adda 5 sano waxyaabaha kale aan diyaarinay waxa kamid ah qorshayaashii degmooyinkan saddexda lagu hawlgeliyay ama kaar qaybin ha noqoto ama diyaar garowga doorashada ha noqoto diyaarinta wacyigelinta iyo waxbarista dadweynaha qorshaheedii shaacinta jadwalka doorashada aanu shaacinay oo aan ku astaysan 23 bishan diyaarinta iyo qalabaynta xafiisyada saddexda degmo hawlgelinta hawlwadanada xafiisyada saddexda degmo iyo dib u habaynta iyo kormeeridda seejooyinkii doorashadu ay ka dhici lahayd dib u qaybinta kaararkii aan hore u soo sheegay oo wajiga koowaad ahaa oo soo dhamaaday maanta hawlaha hadda socda koo waxa ka ah ololihii doorashada oo xisbiyadu ay sameynayaan jadwal loo dejiyay oo xisbi kasta uu xaq u lahaa 2 maalmood fayska hore soo dhamaaday hadda fayska labaad uu socdo oo ku eg 48 saac ka hor maalinta doorashada dabcan maalin ka hor maalinta doorashada ololaha wacyigelinta iyo waxbarista dadweynaha oo BDRC hadda agaasimuhu sheegay qayb ka yihiin anaguna gudiga doorashooyinku ay ayaguna si gooni ah u wadaan qaadashada shaqaalihii iyo gaadiidkii maalinta doorashada
intaas waa waxyaabahan u diyaarinay oo diyaar garowga aan u sameynay si ay hawshaas inoo ku dhacdo hawl kastoo dhacaysa dabcan waxay yeelanaysaa waxyaabo caqabada ah marka waxaan rabaa caqabadaha qayb ka mid inaan tilmaamo si aynu maaragtay u wada ogaano meelaha qaar ama degmooyinka qaar cabasho ayaa ka jirta dhanka roobabka ku yaraa marka reer guuraagii inay ka guureen meelaha qaar oo meelo fogfog ay u guureen waa caqabad dadka codbixiyaha soo wajahday dhaqaalaha aan ku hawlgelayno iyo hawshan baaxadeeda oo aan maaragtay iyada naftoodu ay caqabad ka jirto aan isku filnayn dadka aan horey isu diiwaan gelin oo aan nasiib u helin inay isdiiwaan geliyaan oo diiwaangelin u baahnaa iyada naftooda caqabad ahayd caqabadahaas waxaan is leenahay waa inaha ugu waaweyn aan tilmaami karno oo aan dareemayno inay taagan yihiin fursado waxaan is leenahay fursado fiican aan haysanaa maadaama caqabada jiraan aan is leenahay iyaga naftooda waa inaan ka faa'iideysanaa ay tahay waxaan haysanaa doorashadan iyo kadibba guddi ahaan iyo hay'ad ahaanba iyo shacab ahaanba waqti aan ku diyaar garoono si guud reer Puntland oo muddadan haysano doorashada xigta ama baarlamaani ha ahaato ama goliyaal deegaan ha ahaato ama madaxtooye ha ahaato waqti ku filan haysan ku diyaar garoono kaga fara buuxsano rabitaanka bulshada iyo wacyiga bulshada aad u sareeya waxaanu haysanaa sidoo kale xisbiyo siyaasadeed oo doorashada xigta dabcan dowraro soo baxay ahayn laakiin hadda xisbiyo rasmi ah oo siyaasadeed ayaynu haysanaa oo shaqada dhinacooda aad uga dhaqaajinaya sidoo kale waxaanu soo sameynay oo horeyna ku qabsoomay inaynu 7 gobol 37 degmo 524 seejo laga soo sameeyay diiwaangelintii iyo sidoo kale doorashooyin qaarkood ay ka soo qabsoomeen guud ahaan dadka isdiiwaangeliyay inkastay aad u yar yihiin marka loo eego dadka la qiyaasay Puntland ay ku nool yihiin ilaa 5 milyan 4 milyan wax la sheego kasantara koob rasmi lahayn laakiin qiyaastii inay 400,000 iyo wax la jira isdiiwaan geliyaan runtii iyada naftoodu waa fursad talaabo aan qaadno dhanka fursadda marka laga fiiriyo marka dhamaystir la yimaadana aan isleeyahay wax badan baa fududaan doona haddaan ka soo gudbo intaas waxaan u soo gudbayaa maalinka doorashada agabka iyo goobaha seejooyinka ama goobaha codaynta doorashada scenario-da u dhacaysa ama qaabka u dhacayso processka ku imaanaysa waxa weeye waxa goob kasta loo diyaariyay agab iyo hawlgal yani cidii ka hawlgali lahayd doorashada oo hawlwadanada doorashada ay ugu horeeyaan shaqaalaha shaqayn doona maalinka doorashada sidoo kale waxa la diyaariyay wakiiladii xisbiyada oo goobaha joogi lahaa oo kor joogtada ahaan lahaa kor joogtadii waxaan ku iraahdaa iyadana ka imaysay bulshada rayidka ah kor joogtadii caalamiga ah inaan rajeynayna iyagana inay qayb ka noqdaan maalinta doorashada saraakiisha amniga oo maalinkaas amniga sugaya guud ahaan ay socodka oo noqon doona maalinka xadidnaan doona ama socdaan u jireen cidii aan anagu maaragtay ee guud ahaan siino maaha awood inay ku dhaqaaqdo ama on jaanis u siino shaqada hayso muhiimadda ay leedahay awgeed doorashadu waxay bilaabanaysaa aroornimada 6 subaxnimo waxayna ku eg tahay 6 maqribnimo goobaha doorashada sidoo kale waxa ka hawlgeli doona oo runtii shaqo muhiim ah warbaahinta oo si live ah u soo tamin doonta ilaahay idankiisa aan rajaynayno maalinkaas in goobaha doorashada badankooda ay noqon doonto mid si guud warbaahintu ay ugu hawlgasho safafka goobta doorashada ama goobta codbixinta sida caadiga waxay noqon doonaan 2 saf oo saf uu rag yahay safna uu dumar yahay waxa jiri doonta oo safafkaas dheeraad ka ah dadka aan xamili karin inay taagnaadaan safka oo si gooni aan ugu tababari doono shaqaalaha inay ula tacaamulaan sida maaragtay dadka naafada ah ama maaragtay hooyooyinka uurka leh dadka waayeelka ah dadka baahiyaha gaarka ah leh dhamaantoodna waa la tixgelin doonaa waana la caawin doonaa waana lagu tababaray shaqaalaha waana lagu tababarayaa
mar labaad maadaama shaqaalaha hadda aanu qaadanay yihiin shaqaalihii hore loo tababaray mar labaad lagu tababari doonaa ilaahay idinkiis hawsha codaynta taas inta waxaan kaga gudbayaa si guud seejada iyo maaragtay cidda ka howlgelaysa hawsha codaynta doorashadanu runtii meelaha muhiimka ay tahay inaan wax ka ogaano iyo sida loo hubinayo wax la iska weydiiyo mararka qaar sida loo hubin karaa inaan meesha musuqmaasuq ka dhicin sidee maaragtay ay looga ilaalin karaa in wax doorashada aan laayiq ku ahayn ama ku habboonayn meesha uga dhacaan waxaa jira tallaabooyin la qaado ama qofka codeeyahana lagu tababarayo lagu wacyigeliyo markuu goobta istaagana warqad ay ku dhegan tahay meesha oo ka arkayo tallaabooyinka sidoo uu qaadayo codbixinta shaqaaluhu waxay leeyihiin shaqaale kala duwan oo hubin sameynaya oo meesha fadhiya ugu horeeyaan hubiyaha koowaad qofku hubinaya kaarka qofka uu wato inuu yahay kaarkii beek ay siisay iyo inuu yahay kaar aan sax ahayn wuxuu leeyahay secure feature secure yani secure features buu leeyahay ama features secure ah aan waxba laga bedeli karin hal isticmaalaya waxyaabo lagu hubiyo marka qofka kood wuxuu hubinayaa kaarka haddana buug baa laga hubinayaa magaciisa iyo sawirkiisa iyo kaarkiisa ku yaalan la soo hubinayaa oo haddana qof kale hubinaya marka kadib baa gudoomiyaha goobta wuxuu siinaya warqadii codbixinta oo ka codayn lahaa wuxuuna gudoomiyuhu goobta awood u leeyahay qofka inuu hadii uu ameen dhalaa yahay aan waxba arkeen inuu caawiyo marka caawintiisa nafteedu xad bay leedahay oo waxyaabo uu ka caawin karo in meeshuu rabay inuu calaamadiyo uu ku ekaadaan meel kale aadin kadibna khad baa farta loo marinaya qofkaas ka bacdi buu maaragtay qofkii goobtii markuu codku ku rido uu intaas kaga baxaya hadduu damco inuu soo laabto buuggii waa ka saxan yahay khadka sina uma tirtiri karo waxa lagu fiirinayaa qalab lagu talagalay mar walba hubinaya inuu qofkani khadkii uu farta u marsan yahay tallaabooyinkaas oo dhanna waxa kor joogta ka xisaabtii muraaqibiintoodii oo fadhiya markii doorashadu ay 6 soo dhamaato mararka qaar waxa la isweydiiyaa oo jiri kara in la yiraahdo safkii haduu 6 dhaafo maxaa xal ah hadii 6 ay gaarto gudoomiyaha goobta waxa awood u leeyahay isaga ka mas'uul goobtaas inuu ciidanka amro inay safka joojiyaan inta safka ku jirta dhameystiranto intaas markay dhamaatana uu saa goobta ku dhawaaqeeno goobta ay xiran tahay kadib waxa toos loo bilaabaa tirinta codadku marka la tiriyo codadka isla goobtaaba waxa warqad saxiixaya marka laga soo tago shaqaalaha iyo gudoomiyaha goobta xisbiga naftiisa oo wakiilka u joogay inuu yiraahdo ku qanacsanahay wixii ama cabasho laga qabo gooni baa loo dhigaa laakiin fayl waxay leeyihiin fayl gooni ah laakiin wixii sax ah oo rasmi noqda waxa ku dhawaaqa gudoomiyaha goobta kadib gudoomiyaha degmada kadib bay waxay soo gudubtaa gudoomiyaha gobolka iyo hay'adda oo ugu dambeyn ku dhawaaqda natiijada horraaca ah si ay natiijadu rasmi u noqoto waxa gabagabadii loo gudbiyaa ay u gudubtaa maxkamaduna 9 cisho gudahood ayay natiijada rasmiga ah ku soo saartaa intaasna waxa ku dhex jira processkii xalinta khilaafaadka iyo wixii cabashooyin jira in lagu xaliyo saasayna ku soo gabagabowdaa doorashadu inahaas baan oran lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.